نبضك وذا ووطني وحيالنا النعم ووطني وحبذا دورا ووطني وطنك الدسيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام يا دمان مشهد الدعوان دونتا والصحافات كان سلامك بعد واحد من كهاد ليا حسن فارح حسي حسن متان وأهل بدونيها لانت جرماني حسبي الوطني ما أنت لي تعرف التهاي أفريقيا طبعا كي بشي أفراد لما كل يتدبير طبعا waxaan ku qabanayaa shir saxaafadeed ujeedadiisu ay daaran tahay laba qodob qodobka koowaad oo ah waxaan hadda ka hor afartii bishan afraad warqad silsilaada u gudbiyay hoggaanka xusbiga iyo hoggaanka laantan Germany ka tirsanahayba silsilaadaas oo ahay ku saabsanay arrimo shakhsi ah ka bacdina hoggaanka xusbiga hoggaanka guud ee xusbiga taageerayaasha laanta Germany iyo hoggaanka laanta Germany kadib markii ay igaga timi codsi ah inaan maadaama aan silsilaadaydu arrimo shakhsi ah ku tacalluqday inaan wixii shakhsiyeed joojiyo oo dib u dhigo oo muddada doorashada aan xilka aan xusbiga u hayay halkiisii ka sii wado codsi fara badan oo dhammaan xusbiga qaybihiisa kala duwan ay igaga yimi codsigaas oo aan ka aqbalay hoggaanka xusbiga oo markaa ku sugnaa socdaalo qaaradda Yurub ay ku marayeen kadib waxaa xarunta xusbiga ka soo baxday warqadan aan halkan ku hayo oo ku taariikhaysan 12 bishii afraad 2017 warqadaas oo uu ku saxeexan yahay xogeyaha guud ee xusbiga محمد عبد الله ورعده warqadaas oo ujeedadeedu ay tahay in hoggaanka xusbigu iga diiday codsigii silsilaada igana codsaday inaan hawshaydii halkii ka sii wado sidii markii horeba gudoomiyaha xusbiga ahna musharaxa xusbiga wadani maxamed cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo hoggaamiyaha xusbiga oo aan ku kulanay qaaradda Yurub muddo ay hadda imika socdaal ku kala bixinayeen ay labaduba codsiga ay soo jeediyeen horena aan uga aqbalay iyo warqadan iyo maanta u hoseeya shirkaygan jiray inaan ka falceliyo aniga oo saxaafadii iyo bulshadii Somaliland iyo taageerayaasha xusbiga wadani iyo mas'uuliyiinta xusbiga wadani warqadaydii hore silsilaada hay'adda gaadhay in mar labaad saxaafadda aan u mariyo inaan ka noqday silsilaadii oo aan aqbalay una hoggaansamayo qoraalka iyo codsiga ka soo baxay hoggaanka guud ee xusbiga wadani qodobka labaad ee ay daaran tahay shirkan jirayd waxa weeye waxaynu ognahay dastuurka qaranka Somaliland wuxuu siinayaa muwaadinka Somaliland xuquuq ay u siman yihiin mas'uuliyiinta iyo muwaadiniintuba xuquuqaad siman oo waxay hay'adda asaasi ah oo dastuurku siiyay mas'uuliyiinta qaranka iyo mas'uuliyiinta axsaabta iyagana wuxuu leeyahay حسانات قارب إليهين ودستور كوسينايو مدوي كانوا دنبيي حكومة وحي عادي ستي إن المسؤولين تحسب جودني تعديو حرق استبتشوجا أو عن شرع جوافق سنين أو شرع جبال مرسن أي كلك عايزين مدوي كانوا دنبيي وحاول دنبيي لو مسؤول أو كلاه
محمد صديق دمه iyo يونس أحمد يونس وهذا مدافع عشاء sifa sharci darra ugu xiran jeelka oo haba yaraatee wax loo soo maray hay'adaha garsoorka oo xarigooda maxay helayeen la taxalluq aan jirin wax lagu eedeeyaan jirin kaliya laga qabtay goob ay bulshada Somaliland kula dareen qaadanayeen taadiga xukuumaddu ay ku haysay dadkaas mashruuca wada banaynta ah كترسن حكومة كترسن محيدة حكومة يمر ولا قرنك أودي هوتيل كذا بنيته وشهدي يود وسمين كذا لو تعدي ده شعبي كردي دول مقالة وحيو يبغى الله دريان غير سنة إن كليه وحلو حرايا هاي قوبتي بسقناي أنا مرة هين ولا بقى هين أنت جور مدحها حرق وصلنا ونقضي وحنا لنا حكومته هكوان تودو وهو كان سنة شرعي أساسياتك وسيء شرعي مدحها قرنك مدحها أحساب قرنك هذه مدحها قرنكو أحساب قرنكو أي وحدة لي الرواية وحرية القول في لسه الله عبوريه مصعب ما قرنا نعيد كروح شيء كرته معارض وكوي شيء لها حكومة دليل شيء ده معلم بهار باي مريسا وحل الديدين عن الهضل وحل الديدين عن الشرين وحصل من وح شرعي قبال مرسم وحل لنا حكومة دني بدأ يرى واحد داي هكذا يسبل شديد ده باهدا باهدا أبارها يو سحر بركة لا دارا دعيسة هلك يهيدين وحوق بطو أو أي لدم غطو أو أي يقول بطو يدو أن هوايراته واحد راني كهينين أن كنت لترين سحر بر وحكا غبطو وكنت لترين يقول متكابرة وحكا غبطو وعدي كهذا الشنا عبورين يو عبادس يو حرق يو عبد شلين لغوا حيو حنا نوحاسي دلك دغ مايسو aad baan uga xunahay mana haboona waxaan leenahay sida ugu dhaxsaab badan leh madaxda axsaabta qaranka saxaafada loo soo celiyo xasaanadoodii iyo xorriyadoodii kullay labada qodob ayaa ujeedada ay u qabtay shirkan jiraayid ay daaran tahay kullay anigu muddo hadda imika sanad iyo bara ayaan hayay xilkan gudoomiyaha laanta Germany xusbiga wadani كلي وحفلة يا دي وحاس ما أنت يا حسبه يجدي ليس على سلاد وحويون تينا عم أحين أنا جيه جانك جيه تاجرش يجيبه تدي هوشوا دي بلنا يجي أو هوشوا ده واحد دليل كيمن إن شاء الله أنت دور شلك حدينا وحنقول تلشرنا إن أنا جالسينه حلقة دور شلا حسب الوداني وحسب الكلية ودن كان شرمين كشقية قبل هذا أنت وقاري ما أنت كلامه أنت كهذا دور شذا دمان لامي سوون كود فور دورنا وحنو ديار جروبنا دمان هرمها دور شذا كغير غادي شذا ده هذا يتهاي حق نقاله يدي حق مراقبين ده دمان تيو وحنو دورنا كدها أنا بقول دياري عن عطف حسب العلنو وحنشوف ده يدورنا إن مكانه international observers dad ilaaliya ugu joogayaal ka noqda inkastoo hadda maanta Cabdilaahi Jawaan oo ah taliyihii arrimaha doorashooyinka madaxweynaha oo ah ninka ceelka guntiisa ku jiray wuxuu kaga soo warbixinayay aynu arkaynay oo aad looga walaac badan ka muuqdo in doorasho xor oo xalaal ah ay u dhici doonto shaki badan bulshadu ka qabto way waxaan arkaynaa komishankii qaranka doorashada loo yimaaday inuu ka garnaqo in aan iyaga laftooda kalsooniba ku qabin oo ayagu u ololeynayaan in la furo wax mustambeed la yiraaho oo iyaga laftooda doorashada ka garnaqaya madmadow badan baa ku gadaaman komishanka doorashooyinka qaranka waxaan leenahay iyaguna sidii kalsoonidii ummaddu ku qabtay
ha ku gutaan hawshooda oo waxba yay mustambeed iyo dad aan sharciga meel kaga jirno baalmarsan iyo awoodooda ku wareejin ama aanay u daba fadhiisan madaxweynaha qarankana waxaan leenahay waxaan u jecelahay in dalkan si wanaagsan aad ku sagoojiso si daahir riyaale oo doorasho xor oo xalaal qabato oo noqoto kii ka garnaqay maanta bulshadu aday ku dooratay maantana si doorasho xor u dhici lahayd kii qaban lahaa waadiga assalaamu calaykum nabadda ka wada waa wadani waxyeelada nacab waa wadani wax badan dhowra waa wadani